بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين anigoo ah Bashiir Maxamed Cusmaan ardayda wax ka barata jaamacadda Annamalai University Chidambaram Tamil Nadu India Master of Statistics MSc haystana sidoo kaleeto Bachelor of Math and Physics jaamacadda Muqdisho Soomaaliya waxaan rabaa maanta inaan halkan ka soo jeediyo introduction yar oo ku saabsan maadada statistics-ka ah. Statistics-ku waxa ay tahay statistics-ka qaybaha loo kala qaybiyo iyo sababta ay muhiim noogu tahay inaan barano statistics-ka. Waxaan rabaa inaan ku soo jeediyo mowduuca yar amba lecture-kan yar oo kooban. Si guud ahaan marka statistics-ku la qeexayo waxa lagu qeexay statistics-ku inay tahay is the science of collecting, organizing, analyzing, interpreting and presenting data. waa cilmiga xog ururinta habeenta xogta analyze gareynta ama xogta in la analyze gareeyo, interpret oo ah tarjumid xogta in la tarjumo, iyo presenting data oo ah data soo jeedinti iyadoo oo la isticmaalayo graafiyo iyo noocyo kale oo kala duwan. Si guud ahaan marka statistics-ka la qaybinayo waxa loo kala qaybiyaa laba nooc oo waaweyn oo kala ah descriptive statistics iyo inferential statistics. waana labada qayb oo kaliya oo statistics-ka si guud ahaan loo kala qaybiyo. Markii la rabay in la qeexo descriptive statistics-ka waxa loo qeexaa waa qaybta qaabilsan collection, organizing, presenting and summary of data. waa xog ururin, waa collection in xogta la soo ururiyo, in la soo organization lagu sameeyo xogta la habeeyo, in xogta presenting lagu sameeyo la soo jeediyo, iyo summary of data iyo datada in la soo summary gareeyo. qaybta kale oo ah barto statistics-ka iyadana waxa loo yaqaanaa inferential statistics. Inferential-ku iyaduna waa generalizing from a sample to a population. jawaab amba result ka soo baxday sample-ka in reference ahaan loogu sameeyo amba background ahaan loogu sameeyo population-ka waxa loo yaqaanaa inferential statistics. sidoo kale iyaduna waxa lagu sii daraa in loo yaqaan estimation unknown parameters, parametro aan la aqoonin in la estimate gareeyo, iyo sidoo kale making decisions in go'aano la gaaro. iyadana intaasna waxa la isku dhahaa inferential statistics. haddii mar hada ku celiyo inferential statistics-ku waa generalizing from a sample to a population. sample natiijo ka soo baxday in loo reference gareeyo population-ka oo natiijo yar oo sample laga qaaday jawaabta ka soo baxdo waxa loo celinayaa population-ka. tusaale ahaan marka aan rabay inaan test gareeyo arday galaas dhigato oo 100 arday gaarayso, marka 100kaas arday gaarayso aan 20 arday amba 30 arday oo kamid imtixaan ka qaado, hadii 30kaas arday imtixaanka ay ku wada barmoosaan waxay ka dhigantaa in 100ka arday oo galaaska dhiganaysa dham imtixaanka ay ku wada barmooseen. yani 20ka arday oo sambalkana u qaatay natiijada ka soo baxdo oo ahayd inay imtixaanka baaseen ama inay dhaceen, maxay hadhow reference u noqonay 100ka arday loo base gareynaa. markaasna waxa loo yaqaanaa iyaduna inferential statistics. okay, markii statistics aan ka hadlayno waxaa jiro erayo aad arkaysid inay marar badan kugu soo laabtaan. tusaale ahaan waxaa kamid ah data oo kaleeto, sample oo kaleeto, population oo kaleeto. iyaguna maxay kala yihiin markay wax yar oo definition yar oo kooban. datada waa information from observing measurements. waa natiijo laga soo helo observation. waa information coming from observations. waa information oo laga soo helo observation amba xogo la soo ururiyo. sida hadda tusaale yar hadda aan soo qaadanayno oo kaleeto arday imtixaanka gashay, arday kasto darajada uu keenay marka aan nood gareeyo amba marka aan qorto waa observation. sidoo kaleeto measurement cabiraado la sameeyo natiijooyin ka soo baxayagana waa data. sidoo kale responses iyagana su'aalada la weydiiyay jawaabaha ay ka bixiyeen iyaguna sidoo kaleeto waxay noqonayaan responses. marka laga hadlayo iyaguna sidoo kaleeto sample-ka amba population sample-ku asaguna waa maxaa lagu qeexaa. sample waxa lagu qeexaa asagana waa small part taken from the population. yani qayb yar oo laga soo qaatay population-ka. isla haddii aan ku dabaqno tusaale hadda ahaa 100 arday oo galaas dhigato waxaan dhahnay waxaan test gareynay ama waxaan imtixaan ka qaadnay 20 arday oo kamid ah 100kii arday. then 20kii aan soo qaatay maxay u taagan yihiin waa sample. that's called sample. yani ardayda guud 100 ay ahaayeen, 100kii maxaa imtixaan ka qaada aniga 20 kaliya kamid ah. 20kaasi waxay noqonayaan sample yagana. population maxaa la yidhaahdaa? population waa all observations oo adiga research-ga ama study-ga kamid ah. yani wax aad adigu aad test gareynaysid marka dhammaan observationadooda oo idil oo midna aan laga tagin oo madax laga wada tiriyo
waxaa loo yaqaanaa population data. iyadana markaan dhahnay waxaan data kusoo qeexnay hadda in ay tahay information laga helo observationo ama measurements la sameeyey ama response ama jawaabo soo baxay. okay, datada markii la qaybinayo waxaa loo kala qaybiyaa laba qayb oo waaweyn. waxaa kala jira wax loo yaqaano qualitative data iyo quantitative data. marka laga hadlayo qualitative data si yar oo kooban marka aan uga hadlo, qualitative data waxaa la dhahaa waa data oo aanan qaadan karin ama markii la qoray aan loo qori karin number ahaan, tusaale ahaan 1 2 3 oo kale data aan qormin, datada aan qormin waxaa loo yaqaanaa qualitative. tusaale ahaan marka aan rabo inaan maaragtay in test gareeyo magaalo guud oo kale amba xaafadani dadka jooga kalarkooda qof cad madow, yani waxa qorayo waa number ma aha, waa xarfo. tusaale ahaan gawaarida xaafadan yellow kaleeto kalaradooda waa blue, waa yellow, waa green, waa red. datada noocaas oo kaleeta u qoran waxaa loo yaqaanaa qualitative data. waxaa jirto data kaleeto oo quantitative ah. quantitative data iyadana waxaa la dhahaa data kasta oo qaadan karta nambaro. tusaale ahaan markaan rabo inaan cabiro height-ka oo arday oo kaleeto, qofkan ardaydan dhererkooda waa 138 cm, 190 cm, 165 cm, 170 cm. waxay u qormayaan hab oo number ahaan ah. kuwaasoo kaleetana waxaa loo yaqaanaa iyagana quantitative data. sidoo kaleeto waxaa kamid ah weight-ka oo kaleeto, imise kg, age-ka, da-da ardayda galaaskan fadhido 19 jir, 18 jir, 17 jir, 16 jir, 20 jir. yani nambaradaas kulligood waxay qaadanayaan nambaro. that is called marka quantitative. datada waxaa loo kala qaybiyaa labadaas nooc oo kale ah, qualitative iyo quantitative. si guud ahaan markaan ka hadlaynay statistics-ka waxaa dhahnay laba loo kala qaybiyaa oo kala ah descriptive statistics iyo inferential statistics. descriptive-ka waxaa hoos imaado qodobo badan oo waaweyn. tusaale ahaan descriptive-ka marka laga hadlayo kaleeto waxaa hoos imaan karo sampling iyo survey-ga. marka aan rabo inaan sample sameeyo, survey kale in la sameeyo. sidoo kaleeto statistical display marka la rabo in lasoo bandhigo xogta oo kaleeto iyaduna wax kulli waxay hoos imaanayaan qaybta descriptive-ka. sidoo kaleeto numerical summaries, tusaale ahaan markii xogta la soo ururiyey tirooyin ahaan loo qoro oo la rabo in la soo saaro arithmetic mean-kooda, median-kooda, mode-kooda oo kaleeto numerical summaries. sidoo kaleeto probability-ga. intaasoo idil waxaa isku dhahaa descriptive statistics. inferential-ka iyaguna waxaa hoostaga qaybo kaleeto waaweyn. tusaale ahaan estimating parameters, in parameter la estimate gareeyo, testing hypothesis-ka, regression-ka iyo quality control-ka. intaasoo idilna iyaguna waxay isku hoostagayaan qaybta loo yaqaano inferential statistics, iyaguna isku hoostagayaan. waxaa jira marka hal qodob kaleeto oo muhiim ah oo iyaduna ah qof walba inuu ku baraarugo, taasoo ah marka anigu aan rabo inaan barto statistics-ka sababta u baranayo maxay tahay, why I'm studying statistics, sababta u baranayo. sababtu way tiro badan tahay. statistics dunida maanta arkayno waa duni wada digital ah. number kasta ama wax kasta arkaysidni waxay ku cabiran yihiin nambaro. tusaalooyinka uu kooban marka la joogo medicalka, agriculture-ka, health-ga, waxyaabaha noocaasoo idil kulligood economics-ka, yani kulligood waxay ku wada beesgelaysan yihiin ama laga maarmaan u ah statistics-ka. company wuxuu u rabaa inuu sameeyo 5 sano soo socoto faa'iido intee uu gaari karaa. si company-gani faa'iidada 5 sano soo socoto uu sameyn karo si uu ogaado waa inuu isticmaalo wax loo yaqaan forecasting models. taasoo muhiim u ah in statistics maaragtay base u noqonayso oo in si company-gan uu sameeyo 5 sano soo socota faa'iido uu sameyn karo si uu ogaado waa inuu isticmaalo forecasting models. taasoo ku beesgaraysan statistics-ka. qolooyinka oo gargaarka degdega waxay saadaaliyeen in berito ay dhici doonaan roobab mihigaan ah oo dabeelo wato. markay dadka igu degayaan in berito guryaha aan laga soo bixin, guryaha la joogo, yani waxay ku beesgaraysantahay statistics. taasoo ah xogta ay ururiyeen labadii maalin amba 3 maalin amba isbuuci ugu dambeeyay xogta ay ururiyeen waxay ku ogaan karaan berito wax dhici doono. way saadaalinayaan. waa isla forecasting qayb kamid ah, waa part of statistics. sidoo kaleeto iyaguna waxaa muhiim u ah agriculture-ka, dalaga soo saaristiisa, marketingkiisa qaabka loo sameynayo. waxaasoo idil kulligood waxay ku beesgaraysan yihiin statistics in real life. sidoo kaleeto annaga markaan nahay Soomaali
statistics-ka dalkeena aad ugu baahan yahay inkastoo maalmahan dambe dadka statistics-ka baranayo somehow xoogaa saro kac sameynayaan haddana weli baahidii loo qabay fara kama qodno oo waxaa loo baahan yahay dad tiro badan oo statistics-ka barto sababtoo ah ma jiro tirakoob sax ah oo dalka ka jiro. Minister of Planning-ka waxaa si toos ugu shaqo leedahay statistics-ka qorsheynta qaranka in la sameeyo 20 sano iyo 30 sano soo socoto in dalku uu yeesho qorshe cayiman waxyaabahaas oo idil waxaa sameyn karo dad statisticians ah kuwaasoo aad u bartay cilmiga statistics-ka. marka ardayda Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed dhamaantood waxaan ku boorinaa inay aad u bartaan koorsadan dalkan uga faa'iideeyaan. faa'iidada ilaa statistics-ka si guud ahaan ma ahan wax la soo koobi karo oo hal lecture iyo laba lecture iyo wax lamida ku soo koobi karo. Somalia Institute of Technology mar walba waxay idin soo gudbinaysaa cashiro faa'iido u leh bulshooyinka Soomaaliyeed. cashirkeena maanta ku saabsanaa statistics-ka introduction-kiisa definition-diisa iyo sababta statistics-ka aan u baranayno intaas nagu egyahay maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.